xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay dacaayad la soo abaabulay oo laga faafiyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay dacaayad la soo abaabulay oo laga faafiyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Al Cadaala oo warfidyenada kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa xusay inay hayaan cadeymo ku filan cidda soo abaabushay dacaayadahaasi. Al Cadaala oo ka gaabsaday inuu villa Soomaaliya si toos ah ula xiriiriyo dacaayadaha uu sheegay ayaa tilmaamay in Roble lagu beegsanayo dadaalada uu ugu jiro doorashooyin daahfuran. Waxaa runtii nasiib darro ah in abaabulka dacaayado loo adeegsaday saraakiil ciidan oo darajadii qaranka ku libisan iyo qaar ka mid ah hay'adaha rayidka ee dowladda. Ra'iisul wasaaraha oo u turaya dalka iyo dadka waxa uu go'aansaday in qaladaadkaas isla hay'adaha dowladda lagu dhex saxo, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya. Dhinacyo uusan magacaabin ayuu ku eedeeyay inay soo istaageen shaacinta natiijada baaritaankii guddiga xeelaraadinta ee eedeynta loo soo jeediyey wasiirka koowaad ee dalka Roble. Waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caddaysata ku noqnoqoshada falalka ka baxsan sharciga oo doonaysa inay dana qaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto inay la kulmi doonto tallaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabaysa falalka ay ku kaceen, ayuu yiri Wasiir Al Cadaala. Hay'adaha dowliga ayuu ku booriyey in ay shaqadooda u gutaan sida waafaqsan dastuurka iyo sharciga. Cid kasta oo ka hor timaada ama baalmarta ayuu ugu hanjabay in tallaabo laga qaadi doono. Hadalka Al Cadaala ayaa kusoo beegmay xilli dhowaan taliyaha ciidamada badda Cabdixamiid Dirir uu ka dhawaajiyey in uu Roble boob ku hayo dhul ay leeyihiin ciidamada badda Soomaaliya. Dhawaaqa taliyaha ciidanka badda ayay dad badani ku sifeeyeen shirqool ay soo abaabushay madaxtooyada Soomaaliya, ujeedkuna yahay daahinta doorashooyinka iyo abuuridda xasarad jahawareer ah. Ridwaan Shucayb Maxamed, Social Jawhar TV, magaalada Muqdisho. La socodkaada waxaan ku faraxsanahay inaad nagu soo biirto. Si aad noola sii joogto waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo, ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jawhar TV. Daawade mar waliba waxaad naga heli doontaa warar sugan, short films iyo dhacdooyin sida joogtada uga dhaca dalka inaan idiin soo gudbino.